بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hawlaha badan ee hogaamiyaha u yaal mararka qaar waxa lagu soo ururiyaa ama la sheegaa inay ugu muhiimsan tahay saameynta ama inuu kasbado dad oo ku guuleysto inay fariintiisa ay aqbalaan dadkaas. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam isagoo kalidii ah oo Abu Bakar oo kaliya la socdo oo ciidan la'aan hayso oo la deedeeyo oo madaxiisa la dul dhigay hala cascas ninka keena in la siin doono buu ka baxay magaaladii uu jeclaa Makka. Wuxuu ku soo laabanaya Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam sanado badan kadib isagoo oo awood leh oo ciidan leh oo lagu qiyaaso inay la socdeen dad 10,000 oo qof oo fariintiisii iyo diintiisii la socda oo ciidan iyo hubba leh. Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam markii uu soo laabtay dadka marka magaalada Makka ee uu ku soo laabanayo ee uu furanayo u waaweynaa ama odayga u weynaa meesha joogay wuxuu ahaa Abu Sufyaan. Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam intuu soo hor istaagay ma oran waan ka awood badanahay, ma oran muruq iyo xoog shalaad xoog igu saartay maanta xoog baan iska kaabidaya maadaama ka ciidan badnaa, ma oranin hal la bahdilo oo hal hoos mariyo. Laakiin Nabi Maxamed wuxuu isticmaalay farsamo aan xoog iyo dood iyo hadal midna ahayn oo uu kasban karo markaasi odayga weyn ee Abu Sufyaan. Nabi Maxamed ciidankiisa wuxuu faray qof kasta oo beedka Ilaahay xaramka gala inuu aamin yahay, qof kasta oo gurigiisa joogo oo aan ciidanka la dagaalameyn magaalada soo galayna inuu aamin yahay. Waxa kale ku daray qof kasta oo guriga odayga Abu Sufyaan oo odayga markaa wali muslimna ma oo dadkan loogu yimid magaalada Makka oo aan diinta qaadan ee aan muslimiinta ahayn odaygoodii guriga qofka gala ee beedka Abu Sufyaan gala isna inuu aamin maaha inuu Abu Sufyaan aamin yahay. Abu Sufyaan isagoo la isla soo dhaafay xataa qofka dhabarka saara inuu aamin yahay. Abu Sufyaan buu warkii soo gaaray wuxuu yidhi waxa uu Maxamed ku hadlayaa ma runba. Waxa loo sheegay waxa lagu yidhaahdaa waa runtii. Wuxuu yidhi ma diintiisa qabta in dadkii karaamaysnaa iyo odayaasha iyo qof walba meeqaamkiisa in lagu sharfo oo lagu ilaaliyo mise sabab kale u leeyahay. Waxa lagu yidhi ma diintiisa sida qabta. Abu Sufyaan markuu arkay in loo buuxiyay halkii uu rabay, markuu arkay inaan xil iyo inaan markaa uu adeerkii ama awowgii la lod ahaa aanu hoos tagayn ama aan dulaysi iyo hooseyn imanayn oo diinta Nabi Maxamed ay sida qabto, waxa la sheegaa markaa inay ahayd sababtii uu Abu Sufyaan markaasi uu ku muslimay oo uu diinta ku qaatay. Mar walbana hogaamiyaha suubani waa ka isku daya dadka si kasta oo uu saameyn karo xoog iyo xeelad midkay tahayba inuu ku kasbado. Shakada tan ku xigtay intaan ku kulmi doono dhamaantiin waxaan idinku dhaafay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.